مصبيحي وحكوك عي حزبك ودني حزبك ودني سوماليلاند جعلني ما أقوم كعين dhibaato uu musabixi Soomaaliland ku hayana xisbiga wadani ma ku kicin dhibaato kale oo ku aadan xagga maamulka Soomaaliland haba yaraatee xisbiga wadani kuma kicin maxaa kiciyay xisbiga wadani faafaahin ku saabsan dawladda qadar waxay bixisay 5 milyan farmaajo lagu rijiyay farmaajo 5 milyan wuxuu ballan qaaday in uu ka shaqeyn doono sidii maamulka Soomaaliland oo u burburi lahaa shacabka Soomaaliland ay ula mid noqon lahaayeen koonfurta Soomaaliya 5 milyan waxa howlwadeennada ka qayb qaadanayay oo farmaajo u fududeeyay kamida ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Maareeye lacagtaas waxa loo soo diray Soomaaliland xisbiga wadani 5 milyan ku qaatay in uu burburiyo maamulka Soomaaliland 5 milyan ku qaatay waxa rabaa sargaal Muqdisho jooga oo ka tirsan dawladda karamida shaqaalaha dawladda Soomaaliya oo Muqdisho jooga ma si tilmaamayo ayaa warbixintan ay soo diray warbixinta ayaan marka hore dhageysanayna kadib ayaan faahfaahin ka bixin doonaa anigoo Cabdilaahi Balwaana sida ay wax u jiraan qaabka ay u socon doonaan iyo goorta lagu wado in la gaarsiiyo ilaa heer Soomaaliland ay u la mid noqoto koonfurta inteeda kale bal marka koowaad codka la ii soo diray ayaan dhageysanaynaa codku wuxuu cabirayaa sida ay wax u dhaceen 5 qof ka qayb qaadanaysa burburka Soomaaliland dawladda farmaajo ayaan xigaysa 5 milyan ayaana lagu bixiyay labada nin waa wasiirka warfaafinta iyo wasiirka ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waa kan fariinta oo 5 milyan oo qadar bixisay ku beeskareysan oo farmaajo soo diray ayaa fashilantay waxa ka shaqeynayay rag dhan Soomaaliya iyo Soomaaliland intaba jooga xamal waxa ka shaqeynayay mahdi ninka la yiraahdo ra'iisul wasaare ku xigeenka ninka magaciisa la yiraahdo Maxamed Cabdi Xayir maray labadan nin waxay ku xidhnaayeen laba nin oo jooga Soomaaliland xis xaaji xasan iyo ninka magaciisa la yiraahdo Buuba iyo cirlooga iyo ninka magaciisa la yiraahdo qadar isagana secretary-ga ee la yiraahdo isagana wax magaciisa la yiraahdo magac buu leeyahay khadar baa la yiraahdaa waa ninka ah secretary-ga ama xogayaha guud ee xisbiga wadani 5 milyan ayaa Soomaaliland lagu burburinaya way taala Soomaaliland hadda xawaaladaha lagu soo diray cidda soo dirtay oo aad dhigeysateen xawaaladahana waan idin soo wadaa 5 milyan waxa lagu burburi doonaa jiritaanka maamulka Soomaaliland inay la mid noqoto farmaajo way ka go'an tahay geeyi walba oo af Soomaali looga hadlo farmaajo nabadeeda ma arki karo maanta waad ogtahay Muqdisho dhibaatada ka jirta Puntland dhibaatadii ka dhacday Soomaaliland xisbiga wadani wuxuu qaatay lacag 5 milyan waxaana loogu talagalay burburinta Muusabixi bal wixii ku soo kordhay arintan kulul